maanta waxaanu joognaa climate summit ka dhacaya African Unionka howlkeeda ee magaalada Addis deegaanka Soomaalida ama Somaliland iyo Soomaaliya Djibouti iyo dhulkaas oo kale runtii waxaynu degannahay dhulka la leeyahay saameyn fara badan iyo cimiladan ay ku keenayaan dhulkii la beeran jiray oo si yaraanaya oo dabadeedna la isku laayo biyaha yar iyo dhulka adduunku wuxuu isweydiinayaa haddii cimiladan ay xasiloon daraankana maxaa ka dhici kara waxa ka dhici kara in balaayin dollar la geliyo si security-geeda loo maareeyo halkaasi sidaa darteed Afrika waxay ku andacoonaysaa intaanay hawlahaasi sii adkaanin in maalgelin lagu sameeyo warshadaheeda iyo beeraheeda iyo dhammaan hawlaha bulshada la xiriira oo Cabdiraxmaan waxa tahay gudoomiyaha shirkadda Boundary Mills oo ah shirkad soo saarta daqiiqda iyo shirkan maanta aynu joogno cimilada Afrika waxa lagaga wada hadlay oo laga wada xaajooday sidii Afrika cimiladeeda loo wanaajin lahaa oo warshadaha ku yaala Afrika wax looga qaban lahaa adigu waxaad gudoomiye ka tahay shirkadda Boundary Mills bal maxaa shirkadiinadii ka qorshaysan inaad la jaan qaadaan isbeddelka cimilada iyo sidii shirkan looga wada hadlay aad iyo aad baad u mahadsantahay waa su'aal aad u wacan weeyaan waxa weeyaan maadaama laga hadlayo maalgashi iyo investment halkani oo si warshadaha loo horumarin lahaa Afrika inagu maynanu sugin beesha caalamku inoo timaada ama wadamo kale inoo soo gurmada ama hay'ado wax inoo qabta shirkadda Boundary Mills waa shirkad lagu aasaasay hadafka ama aragtida ummadda Soomaaliyeed oo meel walba laga soo maalgeliyay marka cid kale waxba inoo ma qaban horta inaga wax qabsanay halkan shirkani waxa weeyaan oo kale waa food security-gu sugnaanta cuntadu waa sugnaanta dalalka weeyaan hadday cuntadu sugan tahay ama warshaduhu ay sugan yihiin ama horumarku sugan yahay dalkaas sugnaanaya marka annaga waxa nooga qorshaa inaanu sii ballaarino iyo maalgashigan iyo investmentkan halkan lagu shaaciyay ee la leeyahay Afrika ka soo kabato arrimahan ma garanaysaa cimilada ah waxa weeyaan dadkan u soo bandhignaa si maalgashigan u sii ballaarino waanu soo bandhignay dhawaan qof kasta saami buu ka iibsan karaa 1500 baa ugu yar waxa weeyaan wax soo saarka ayaanu sii ballaarinaynaa oo noqonaysa calafka xoolaha iyo daqiiqda waxa la yiraahdaa ilaa 300 milyan oo dollar bay Soomaalidu ku isticmaashaa isku celceliskeeda marka la eego sidaa darteed waa wax suuq aad u ballaaran faa'iidana ay ku jirto maalgashigana soo hoyn karaya faa'iido dalkii dadkina wax u qaban karaya marka annaga waxa nooga qorshaysan waxa weeyaan aanu dadaalkii sii liban laabno ummadda Soomaalida u soo bandhigno fursadahan aanu hayno dadka kalena aanu ku dhiirigelino